السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من درير سومالياني وايد السلام يا ميل كستا جوجتان با وروحان arka wali buuqiya qayladii cadawga oo sii socda iyo dadkii waxa macni Soomaaliland ka soo horjeeday buuqoodii qayladoodii iska sii wata maanta waxaan arkayay iyada oo mudaharaadiyo meel ay ka socdaan leeyahay waa reer awdal oo diidan in laga sameeyo maxaan ku dhahay saldhig laga sameeyo saylac iyo lagu haya horta dadkaas in badan baa faragelinta lagu haya ilaa iyo weligoodba dadkaasi waxay sida reer laascaanood ugu sheekeeyeen bay ugu sheekeeyeen waa la idin haystaa marka runtii waa dad ka adkaystay in badan oo aan faragelintooda u nuglaanin laakiin waxa dhici karta maanta inay waxoogaa maaragtay sida dadka kale ba loogu sheekaynayo leelay bad baa la idin ka qaadaya iyo dhul baa la idin ka qaadaya daasun bay malaha rumaysteen marka anigu waxa baan oran lahaa haday sidaa tahay badda Somaliland way dheer tahay marka laga yaro durkiyo meel kale ha loo durkiyo ciidamada Ethiopia ana ma bad ha sheegtaan ama kuwa kale ha ahaadaan runtii waxay ahayd in dhinaca bariga la mariyo oo cadawga halkaas inaga soo dhow inaga soo duulaya badda inta badan xaggaasay dadka khalkhalinaya ay ka soo galayaan marka bariga in la geeyo maydhiya meelaha la geeyaa bay ahayd maxaan ku dhahday Somaliland waa u baahantay ciidan wada shaqayn ciidan ay Ethiopia la yeerato way u baahan tahay waayo waxaynu u baahanay ciidamo tababaran baynu u baahanay inaynu iska difaacayo cadow iska difaaca inaynu iska kaashanaaba baynu u baahanay Soomaaliya waad ogtahay oo ciidamadii iyo dadkii ka dagaalamay laascaanood waxay ahayd ciidamo ay ku soo tababaratay Eritrea maanta hubkii baa laga qaaday waxa laga qaaday xayiraadii hubka cidda koobaad ay ku soo weerari doonto hubka markay heshaan waa Somaliland marka Somaliland wada shaqayn ciidan bay uga baahantay Ethiopia waxay uga baahantahay iskaashi badan bay dhaqaalaha ka sako difaacan Somaliland iyo Ethiopia way isu baahanyiin marka ciidamada xagga bariga la geeyo ayay ahayd Ethiopia in la saxiixdaa bay ahayd ciidamo difaaca inay ciidamadeena inoo tababarto inaynu iskaashano oo maaragtay ay difaaceena macnihii ka qayb qaadato waa wax aad iyo aad u muhiim ah wadamada caalamka wadamo badan bad kula jiraan balama wadamo aad uga fogfog macnihii oo ay balama kula jiraan hadii ay cidi soo weerarto ay difaaci doonto marka Somaliland iyo Ethiopia dhaqaalaha iyo difaac iyo si kastaba iyo nabad xasiloonida geeska Afrika inay xasiliyaanba waa u baahan yihiin inay iska kaashadaan Somaliland waxaan maqlay kuwa leh cadawga koobaad ee Soomaaliyeed waa Ethiopia may walaalo anaga cadawga iyaga koobaad waa Soomaaliya cid aan cadow aan Soomaaliya iyo waxa Soomaalida sheegta marka Djibouti laga reebo waxa kale waa cadawga iyaga weeye waxaas anaga kuwaas anaga cadawga iyaga ah kuwaas aanay tahay inaanu hub u samaysano inaanu ciidamo u diyaarsano inaanu cidii kasta ee aanu la shaqayn karnaba ay Somaliland hesho si ay maxaan ku raahday ay la macaamisho oo difaacda oo maxaan ku raahday difaaca Somaliland ka qayb qaadata marka cadawga iyagu anaga waa Soomaaliya waana iska difaacina cid kasta oo nala caawinaysana waa u baahanaysa Soomaaliya ba ugu baahatay Eritrea oo dhul Soomaaliyeed haysato Ethiopia ka qabsatay in maxaan ku rahay Djibouti dhul ka qabsatay ayaa iyo maxaan ku rahay ciidamada tababarta ciidamada Soomaaliya oo madaxweynihiinu iyadoo maxaan ku rahay madaxweynihii hore Farmaajo ayadoo dhulkii Djibouti la haysto ayuu ka degay maxaan ku rahay Eritrea marka ma adugu axsaan faraya in Djibouti oo waliba intaas oo sanadood dadaal ugu jirtay inay Soomaalida heshiisiiso inay Soomaalida midayso ayaa iyadoo dalkeedii la qabsaday uu Farmaajo ka degay Eritrea sidoo ciidamo ugu soo tababarto oo Somaliland ku qabsado nafante marka walaal Soomaalinimo wax la yiraahdo ma jirta dambaa jirta Soomaaliyana waa cadawga koobaad ee Somaliland cid allaala iyo cidii ay Somaliland kaashanayso hadday military noqoto iyo hadday dhaqaale noqoto xaq bay u leedahay
haddii markaa ay muran ka yimaado meelaha la geynayo dhulka somalilan wuu ballaadhanyay, dhulka etoobiya u dhowi wuu ballaadhanyay. ha la helo meel kale oo la dejiyo ciidamada maxaan ku dhahday etoobiya. anagu 30 sanadeed u dambeysay iyo ka horba meesha cadowgayaga ahayd waa Soomaaliya, ciddii dagaalka nagu soo qaada waa Soomaaliya, cidda shacabkayaga ka dhex shaqaysa waa Soomaaliya, cidda ummadayada isku dirta waa Soomaaliya. anagu dhibaato Etoobiya kalamaanaan kulmin, taariikhduna la wadi maayo uun. beri bay Etoobiya inagu soo duushay, beri bay Etoobiya sida goormay ahayd dhalashadaydii ka hor bay ahayd. marka maxaad goormay goorta Etoobiya intaan anagu garaadsaday Soomaaliya cadowgayga ahayd, Soomaaliya la dagaalamaynay, Soomaaliya ina soo weeraraysay, Soomaaliya iska cil. marka reer Somaliland waa inay fahmaan inuu cadowgooda koobaad Soomaaliya yahay. waxaan maqlaa marar dooda aan dhagaysanaya dhalinyaro leh matalan haddii Djibouti ay Etoobiya ka soo guurto soo inoo xanaaqi mayso, Djibouti inoo xanaaqi mayso dekedeeda hadday laga soo guuro. horta kow lagaba soo guurma malayma inay ka soo guurayso, weli way u baahan tahay Djibouti. hase ahaatee Djibouti markay danaheeda qabsanaysay, markay kala soo dejisanaysay, badaheeda ka kareynaysay dowladaha kala duwan, inaga inamay soo garaacin, inalamanay soo hadlin, waxna inamay weydiin. Djibouti waa dad walaalaheena, xumaan iyo colaadina aanay inaga dhaxaynin, laakiin tartan dhaqaale inaga dhaxeeya. marka sida iyaduba maxaan ku dhahay dalkeeda uu horumarkiisa u raadinayso uu weeye inaynu inaguna u raadinaa. yara way inala garanaysaa xumaan inoogu qaadimayso. kuwan kalena awalba cadowgeena ay ahaayeen, wax macno oo ay samaynayaan xanaaqood iyo xanaaq la-aantoodu ma jirto. waa kuway tahay in aynu iska difaacno. dowladda Somaliland wuxuun baan kula talinayaa in ay maxaan ku dhahdaayay laga fiirsado wax la saxeexayo iyo waxa loo ogolaanayo Etoobiya. kolley waxa iska badan beenta iska badan. reer Soomaaliyana waxa ay ku jiraan dadaal baraha bulshada oo beenta siday u faafiyaan, codad la dul saaro, qoraallo cusub laga daba keeno, wax macni wax aad bay ka wadaan. marka waxa ay soo gaadhaysa inay ay tiri Etoobiya markaanu degno ayaanu Somaliland aqoonsanayna. taasi caqli gal maaha. waxa weeyaan waa in labada saxeex mar la wada saxeexo, ballamaha waa in mar la wada saxeexo. sidii TV-ga laysu soo taagay shalayto waa in laysu soo wada taago, la sheego in Somaliland la aqoonsaday. Somaliland aqoonsigeeda wax badan inay u lumiso weeye. wax badan macnihii dhul bixin mayno, laakiin haddana waxyaabaha qaar inaad qaadato weeye. dhul bixiya marnaba ma jirayo, bad iyo berri toona. hase ahaatee halka la leeyahay marka dadka qaar ka xanaaqsayin konton sana loo saxeexo oo isticmaala 100 sano in loo saxeexay hadday doonto 100 sano in loo saxeexo weeye. marka Somaliland wuxuun baa muhiimadu ay tahay inay ka fiirsato oo Etoobiya ayadoon ku dhawaaqin ogolaanshiyaha iyo gooni istaaga Somaliland inaan waxba loo saxeexin weeye. waxyaabo badan oo kale oo inoo muhiima dhaqaalaheena oo kale sida kalluunka oo kale inaanay suuqyada kale naylagula tartamin, aynu inagu muhiimada koobaad saarno. muhiimada koobaad uu kalluunkeenu Etoobiya ka yeesho si aanay suuqyada kale iyo wadamada kale inagula tartamin, maadaama inaguba wax weyn aynu bixinayno, khatarna aynu u gelayno, oynu ognahay inay sababta awada Soomaaliya inagu soo weerari doonto. waa inay iyaguna waxyaabo badan ay ka tagaan. marka dowladda Somaliland waa inay ka fiirsato, shacabka reer Somaliland waa inay ka fiirsadaan. waa in anyway waa la isla gartay in la soo gudbiyo golayaasha loo soo gudbiyo oo mucaaradku waa wada ogolaadeen oo waa soo dhaweeyeen. marka guul iyo gobonimo ayaan leeyahay Somaliland. cadowgeenu Etoobiya maaha waa Soomaaliya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.